Soo dhawaada saaxiibayaal, maanta waxaan halkan kaga hadlaynaa video maalmahan TikTok aad u wareegaya videoga oo ku saabsan Seth Hajiyo in uu leeyahay xaas iyo gabadh oo asiga dhalay uu markaa qarinayo. saanaan canugta ku dhale xaasaa leeyahay maasha Allah wax walba akhrisan kartaa. Bal maxaa ka jiro arrinkaas oo ifbaxaya maalmahan aad u haysay dhanka iyo TikTok xaqiiqda dhabta ah ee videogan iyo backgroundkiisa saxda ah. Daawadee waa ay wanaagsan tahay haddii ay waran tahayna Hajiyo qarinaya xaas iyo gabadh ama caruur kale uu leeyahay marka uusan ogolanin baraha bulshada uu markaa wejigooda si public ah uu keeno. Waa ay fiican tahay midda oo noloshada private-ka waxay ku qurxan tahay inaad si private ah aad u gasho, laakiin waxaan ka salgaaraynaa xaqiiqda videogan iyo asalkiisa sax ahaansho ama maran habaabin labadaba midka uu yahay. Run ahaantii aragtidayda koowaad aan arkay videogan anigu runtii xaqiiq ayaanba moodayay oo waxaan is iri yaa ninka ijkiisa waa ay ka muuqataa, waa la dhihi karaa haddii qof famil leh waa uu noqon karaa, laakiin markii aan xoogaa yaraa dib ugu noqday videoga waxaan ogaaday in videogan aan hadda ka hor horay u daawaday ama meel uun aan ku arkay. Saadaasheeda sax ahaansho ee videogan marnaba mas-uuliin aragtida ahayd in videogan meel uun aan horay ugu daawaday ama aan ku arkay oo waxaanba soo helay originalka videoga waxaana la soo dhigay YouTube-ka. walaalkii arrimahan oo dadka hor kaga hadlayay taariikhdiisa backgroundkiisa dambe. saaxiib waxaas anacda camal ahay saanaan canugta ku dhale xaasaa leeyahay maasha Allah wax walba akhrisan kartaa. Kilibka video laga soo jiray qaybta dambe oo asad kaliya dhahayo waxaan sidan aan ku dhalay ama haldan ku jirka baan ku dhalay xaasana leeyahay. Qaybtan baa la soo yara jaray oo petition laga abuurayay, laakiin sax ahaanshaha videoga waxa uu ahaa story yar oo kaga sheekeynaya yar xaaladiisa oo kale oo mar isbitaal ay ku kulmeen, sheekadiisa noloshiisana ugu sheekeynayay uu anaga ama videoga si public ahaan dadka ula wadaagay. Marka loo eego casriga teknolojiyadda sida hawliga hadda ku socdo oo artificial intelligence adduunka aad u qasayo, videogan asad nasiib uu ku lahaa maadaama la soo helay kaliya video laga soo jaray video hore uu soo dhigay oo hadda waxaaba la iska sameeyaa dark web wax aadan lahayn ayaa wejigaaga in la qaado lagu korsaarayaa blackmail laga yaabaa in lagugu sameeyo. Inkastoo Soomaalida aysan arrimaha maalmahan soo galin, laakiin adduunyadu artificial intelligence aad buu qasayaa. Daawada aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga aad ka bixisay videogan daawashadiisa. Intaan kulmi doono videoga xiga, see you, bye bye.